waa mid ka mid ah duuliyayaashii nidaamkii Bashaar al-Asad ee geystay mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee abid taariikhda soo mara. waxa uu laayay shacab iskugu jira carruur, waayeelo iyo dumar aan wax dambi ah gelin. markii meesha laga saaray madaxweynihii Suuriya ahaana kaligii talis dambiyo culculus ka galay shacabka Suuriya, waxaa gacanta lagu soo dhigay dambiilayaal ahaana saaxiibadii ugu dhowdhawaa raggii uu xukunka ku abaalmariyay ee geystay tacdiye ka baxsan bini'aadanimada. qaar ka mid ah ayaa la helay muuqaallo iyagoo ay gacantooda ku duubeen iyagoo weliba si live ah u tooganaya shacab Suuriyaan ah. waa ay ku jeesjeesayaan waxayna u adeegsanayaan awood ciidan. maanta ayaan dhageysanaynaa qiraalka duuliye ka mid ah nidaamkii Bashaar al-Asad. waxa uu sheegayaa dambiyadii uu galay, sababaha ku riixay iyo weliba halka ay ku dambeeyaan saaxiibadiisii dhiigga shacabka lagu naasnuujin jiray. qiraalkiisa ayaana u dhacaya sidan: magacaygu waa Cabdikariim Axmed Caliyaan, waxaan ka mid ahaa duuliyaashii ciidamadii cirka ee nidaamkii Bashaar al-Asad. waxaan maanta ka hadlayaa waxyaabo sanado badan qarsoonaa. waxaan doonayaa inaan sheego sida ay wax u dhaceen laga bilaabo maalinkii aan ku biiray ciidamada ilaa maanta oo aan ogaaday dhammaan wixii aan sameeyey inay ahaayeen dambiyo aan shacabka Suuriya ka galay. waxaan ku biiray kuliyadda ciidamada cirka sanadii 1985. waqtigaas waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah oo rumaysnaa in ciidanku uu yahay sharaf iyo difaac qaran. 3 sano kadib ayaan ka qalin jabiyay darajada 2 xidigle. waxaan noqday duuliye dagaal. waxaan si tartiib ah ugu dhex milmay nidaamkii Bashaar al-Asad ee xilligaasi Suuriya maamulayay. sanadihii dambe ayaan bartay duuliyaal badan oo aan wada shaqayn jirnay, waxaana ka mid ahaa Raami Qambar Suleymaan. waxaan dhammaanteen ka shaqayn jirnay garoomada militariga, gaar ahaan garoonka Damiir oo ahaa mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee ciidamada cirka Suuriya. markii kacdoonkii Suuriya uu bilowday sanadii 2011, wax walba ayaa isbedelay. mudaharaadadii shacabka ayaa sii kordhay, waxaana naloogu sheegay inay yihiin kooxo hubaysan iyo argagixiso. laakiin markii howlgalladu bateen ayaan si tartiib ah u fahmay in magaalooyin dhan iyo xaafado shacab ah la duqeynayay. garoonka Damiir waxa uu noqday xarun weyn oo laga maamulo weerarada koonfurta Suuriya, daraag gahootada bari iyo gahootada galbeed iyo sidoo kale deegaano kale. amarada ayaa si toos ah nooga imaan jiray madaxda sarsare. mararka qaar ayaa naloo sheegi jiray in amaradu ay si toos ah uga imaanayaan madaxweynaha laftiisa, waa Bashaar al-Asadi. howlgal kasta waxay noogu imaan jirtay warqad ay ku qoran yihiin isku duwayaasha bartilmaameedka. waxaa naloo sheegi jiray oo keliya meesha aan duqeynayno. ma jirin wax dood ah, qofna ma weydiin jirin waxa meesha ku yaala ama dadka halkaasi ku nool. shaqadeen waxay ahayd inaan kacno, soo duqeyno, kadibna aan si nabad ah ku soo laabanno. markii hore waxaan isku qarcin jiray inaan fulinayo amar ciidan. waxaan naftayda u sheegi jiray inaanan aqoon cidda bartilmaameedka ah, laakiin runtu waxay tahay inaan markii dambe wada ogaanay wax dhacaya. maalin kasta waxaan arki jirnay wararka markii aan daawano sawirada carruur dhimatay, haween iyo waayeelo burburka laga soo hoosaarayo. waxaan xasuustaa maalmo badan oo aan duqeynay Duma iyo Dayr al-Casfir. waxaana loo sheegay inay yihiin howlgallo caadi ah, laakiin markii dambe ayaan arkayay muuqaalada suuqa Duma oo dad rayid ah ku kordumay, lagana soo saarayo meydadka iyo dhaawacyada kadib gantaaladii aan ku garaacnay. waxaan maqlayay qaylada dadka iyo sheekooyinka carruur ku hoos dhimatay burburka diyaaradaha dagaalka halkaas ay ka geysteen. maalin kale ayaa naloo diyaariyey bambooyin aan caadi ahayn. mid ka mid ah saraakiisha hubka diyaarinaysay ayaa ii sheegay inay yihiin bambooyin vacuum ah oo awood qarxeed oo aad u weyn leh. waxaan xasuustaa inaan ka naxay markii aan arkay sida loo diyaarinayo iyo inta ay la eg yihiin. waxaa xataa jirtay hadal hoose oo sheegaya in hub gaar ah uu ahaa, kaas oo markii hore lagu soo tijaabiyey xayawaano inta aan loo isticmaalay shacabka. waxaan xasuustaa maalin si gaar ah maskaxdayda ugu xusan. waxaana la siiyey amar degdeg ah. waxaana loo sheegay in koliyo gaadiid ah ay ka baxday Duma kuna sii socoto gahootada galbeed. waxaana la kiciyey aniga iyo duuliye kale. waxaana laga hagayay diyaarado daroon ah oo kor naga duulayay. markii aan duqeynta fulinay kadib ayaan ogaanay in bartilmaameedku uu ahaa Sheekh Sahran Aloosh. markii howlgalkaasi uu dhammaaday, qaar naga mid ah waxaa la siiyey abaarmalin lacageed iyo hadiyado. nidaamku waxa uu nagu dhiirigeli jiray inaan sii wadno. waxaana loo arkayay geesiyaal, laakiin gudaha qalbigayga waxa uu dareemayay inaan sii luminayo bini'aadanimada. waxaa jiray duuliyayaal diiday amarada. qaar ayaa la xiray, qaar kale waa la waayey meel ay jaar iyo cirib dhigeen. waxaana la aaminsan yahay in taliskaasi uu khaarijiyey. taas ayaa nagu abuurtay cabsi joogto ah. waxaan ka baqaynay haddii aan diidno in qoysaskeena waxyeelo loo geysto. laakiin maanta markii aan dib u fiiriyo,
waxaan ogahay in cabsidu aysan cudurdaar u noqon karin dhiigga shacabka. Waxaan arkayay magaalooyin dhan oo la burburiyey. Waxaan maqlay dad la leeyahay toddobaadyo ay ku hoos jiraan godadka iyo burburka hoostiisa iyagoo ka cararayay diyaaradihii inagu aan wadnay. Waxaan arkayay carruur dhaawacan, hooyooyin ooyaya iyo waayeel aan haysan meel ay aadaan. Markii nidaamku daciifay, magacyadeennii ayaa soo ifbaxay. Diiwaanada garoonka militariga ayaa laga helay dadkii aan duqaynay. Waxay ogaadeen cidda ka dambeysay. Markaas ayaan fahmay in maalintaasi ay xisaabteenu imaan doonto. Maanta waxaan qirayaa inaan qayb ka ahaa mashiinkii burburiyey Suuriya. Waxaan muddo dheer isku dayayay inaan ku qanciyo naftayda inaan ahaa askari amar qaadanaya, laakiin xaqiiqdu waxay tahay inaan ka qayb qaatay dilal iyo burbur aan la iloobi doonin. Waxaan xasuustaa carruurtii, haweenkii iyo waayeelkii ku dhintay duqaymaha aan geysanay. Waxaan xasuustaa qaylada dadkii ka soo baxaysay idaacadaha iyo muuqaalada internetka. Waxaa jira waxyaabo aniga habeenkii hurdada ii diida. Ma aqaano in shacabka Suuriya ay mar un i cafi doonaan, laakiin waxaan ogahay in runta aan la qarin karin weligeed. Qof kasta oo ka qayb qaatay daadinta dhiigga shacabka wuxuu maalin uun wajihi doonaa cadaalad. Haddii aysan ahaanin dunida, waxay ahaan doontaa midda aakhiro. Aniga ahaan, tani waa qiraal aan ka daahay, laakiin run aan mar dambe la qarin karin. Halkaas ay ku soo afmeerantay qiraalkayga. haddaba saaxiibayaal, waxaa halkaas ku soo gabagabeeyey sheekadii ku saabsanayd qiraal uu sameeyey mid ka mid ah raggii geystay tacadiyadii ugu xumaa ee abid soo mara taariikhda Suuriya, ahaana duuliye ka mid ah duuliyaashii ugu sarreeyey ee nidaamkii Bashaar al-Asad, kaas oo dhowaan xukunka si farakamuquunis ah looga saaray. haddii ay tahay soo booqashadaadii koowaad ee janaalkeena iyo janaalkiina Xalana Media, ku soo biir oo ka mid noqo saaxiibada hela barnaamijyada aan halkan ku baahiyo sida joogtada ah. haddii aad igala socoto dhanka Facebook-ga ee Xasan Kaafi Xalanana, sidoo kale saaxiib ka mid noqo saaxiibada halkaasi inooga xiran. waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga. ha ilaawin saaxiib, haddii aad la soo gaartay ilaa iyo halkan, in like-taada iyo sidoo kale subscribe-taadu ay ii tahay dhiirigelin iyo garab istaag buuxa. waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga.